Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada falanqaynta kulanka North London Derby. Arsenal iyo Tottenham ayaa iska hor imaan doona kulankoodii labaad ee xilli ciyaareedkan maalinta Axadda ah gegida Tottenham Hotspur Stadium. Arsenal oo isha ku hayda inay kulankii labaad oo xiriir ah sanadkan ay Tottenham ka badiso derbiga. Arsenal ayaa sidoo kale isha ku hayda inay dhibcaha ay ku haydo hogaanka Premier League sii kordhisato waa haddii ay Manchester City ay dhibco ku lumiso kulanka ee Old Trafford lagu dheeli doono ee Manchester Derby kaasoo kulankan ka hor la ciyaari doono. Sheekooyin badan oo xiiso leh ayaan idin hayaa soo dhawaada intaana falqaynteena u guda gelin. Fadlan muuqaalka like saar, channelkan subscribe ku cimaamad naguna soo biir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta. Mahadsanid. Waayahay haddaan ku horumarno taariikhda kulankan North London Derby ayaa ah mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan Premier League iyo guud ahaan kubadda cagta. Kulankan ayaa ah kulanka labaad ee taariikhda Premier League goolasho ugu badan la iska dhaliyay iyadoo labada kooxood iska dhaliyeen 175 gool. 22 gool oo ka mid ah 175taas ayaa ka yimid penaltiyo taasoo ka dhigaysa kulankan midka ugu penaltiyada badan taariikhda Premier League. Sidaas la mid ah kulankan ayaa ah kulanka kambaagyada ugu badan ee taariikhda Premier League la isku sameeyay iyadoo Tottenham ay tahay kooxda dhibcaha ugu badan lumisay taasoo ah inay lumisay 45 dhibcood kadib markay ciyaarta hogaanka u qabatay. Arsenal oo xilli ciyaareedkeedii ugu fiicnaa ee taariikhda Premier League ebit soo bandhigtay ilaa hadda xilli ciyaareedkan ayaa rajaynaysa inay wadada guulaha ku soo laabato kadib barbardhicii Everton ahaa ee isbuucii la soo dhaafay ay la gashay kooxda Newcastle. Macallin Arteta ayaa raba inuu noqdo macallinkii ugu horeeyay ee ku badiya garoonka cusub ee kooxda Tottenham Hotspur. Macallin Arteta ayay aad muhiim ugu tahay inuu natiijo wax ku ool ka helo kulankan maadaama afarta kulan ee soo socota ay la dheeli doonaan kooxaha Manchester United, Everton, Brentford iyo Manchester City. Dhanka kale Tottenham oo isbuucii la soo dhaafay wadada guulaha ku soo laabatay kadib 2 kulan oo guuldarro iyo barbardhac ay isugu xigsaday ayaa qolkeeda labiska muranka dhex jeeraya iyadoo macallin Antonio Conte oo ka cabanayo inaan laga taageerin inuu suuqa kale iibsiga ka soo gato ciyaaryahano tayo leh. Macallin Conte oo aad loogu dhaliilay qaabkii iyo taktikadii uu dheelay kulankii hore ee Emirates Stadium 3-1 kooxiisa looga badiyay ayaa la filayaa inuu markaan ismuujiyo oo Arsenal kaga aarsado gurigiisa. Markaan haddaan fiirino shaxda ay ku soo geli karaan labada kooxood Tottenham haddaan ku hormarno Lloris, Romero, Dyer, Lenglet iyo Dorothy, Bazuma iyo Hobie iyo Perisic oo qadka dhexe ah, Son, Kane iyo Dusan Kulusevski oo kulamadii u dambeeyay kooxda ka maqnaayay balse tababarka ku soo laabtay maalmihii u dambeeyay ayaa la rajaynayaa inay ku soo bilowdaan afka hore. Arsenal dalkeed haddaan fiirino wax cusub oo dhaawacaya ma jiraan. Macallin Arteta ayaa kulankan benchigiisa xoogaa sidii hore ka xooganaa doona iyadoo kulankan uu soo laabo doono Emile Smith Rowe oo kulankii FA Cup ka dheelay. Intaas kadib ma filayno inay wax badan iska bedelaan shaxdiisii hore ee Macallin Arteta. Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka iyo Odegaard oo dhexda ah, Saka, Nketiah iyo Martinelli. Nketiah oo asaguna intii uu Jesus maqnaay kulamadii 4 kulan dheelay 4 gool dhaliyay ayaa kulankan mar kale looga fadhiyaa inuu difaaca Tottenham warka keeno. Haddaba natiijada noocee ah ayaa kulankan laga firi karaa. Arsenal haddaan fiirino Arsenal runtii sida la socotaan saaxiibayaal Premier League inay ku badiso guriga Tottenham runtii waayahan ma aanan arkin. Waxaad moodaa in labada kooxood marka taariikhda dib u fiirisid in ay koox walba gurigeeda ku badiso. Sanadkii hore oo kale haddaan fiirino Arsenal kulankii hore oo gurigeeda lagu dheelay 3-1 ay Tottenham kaga badisay laakiin kulankii dambe oo ahaa kulankii macallin Antonio Conte oo kooxda watay 3-0 ayaa Arsenal looga badiyay. Laakiin Arsenalkii aan sanadihii dambe aragnay maahan, waa koox sidii hore ka duwan. Macallin Arteta runtii projectiga uu dhisayo iyo waxa ay sanadkan kooxiisa soo bandhigtay waa wax cajiib ah. Arsenal saan hore soo sheegnay seasonkii ugu fiicnaa ee Premier League ee ebit taariikhdooda ay ku jiraan waana markii ugu horeeyay oo ay 17 gool ay dheelaan ay 44 dhibcood ama wax u dhow ay arursadaan. Arsenal fursad fiican ay u haysataa inay sanadkan Premier League ku guuleysato gaar ahaan marka la fiirsho in 10kii kooxood ee hadda ka hor intaano dhibca arursaday xilligan horyaalka inay dhammaantood ku guuleysteen marka laga reebo hal koox oo ahayd Liverpool 2018-19. Marka Arsenal hadday rabto in horyaalka ku guuleysato kulankan aad ayuu muhiim ugu yahay. Waxaa la soconaa in kulankan oo ka horeeyo kulanka Manchester Derby uu ka soo hormari doono. Kulankaas haddii City ay dhibco lumiso waxay Arsenal u baahan tahay inay dhibcaheeda ay sii kordhisato. Haddii Arsenal ay City soo guuleysatana sidaas la mid ah Arsenal ma awoodo ama uma baahna inay dhibcaha ay sii yaraadaan. Hadda 5 dhibcood ay horyaalka hogaankiisa ku haydaa. Haddii City ay United soo garaacdo
Arsenalna ay dhibco luus garayso, taas dhib weyn ayay ku noqon doontaa. Sidoo kale waxaan ognahay in kulamada soo socda Arsenal kulamo adag dheeli doonto oo Manchester United ay kulanka soo xigay la dheeli doonto, inkastoo City iyaduna ay Tottenham la dheeli doonto. laakiin runtii ma noqon doonto ciyaar fudud si macallin Arteta oo u guuleysto. Ciyaaryahanada oo wato ciyaarna aad da'yar u ah oo aan experience badan haysan, waana kooxda ugu safkiisa hore marka la fiirsho waa kooxda ugu da'da yar ee Premier League xagaagan. Haddii garoonka Tottenham oo runtii ah garoon maaragtay koox xifaalta weyn kala dhexeeyo, taageerayaashu ay saameyn ku leeyihiin ciyaarta sida sanadkii hore aan aragnay ciyaartii 3 Everton looga badiyo kala day dhacdo, runtii ceeb weyn ayay ku noqon doontaa in jab weyn macallin Arteta iyo in horyaalka Premier League ay Arsenal sanadkan ay ku guuleysato. laakiin Arsenal aan sanadkan aragnay wax walba ayaa ka suurtaaba. Macallinka Tottenham watana runtii iyo qaabka u dheelo waxaad moodaa inay Arsenal ay maaragtay u fiican tahay. Macallin Antonio Conte inkastoo macallin world class uu yahay, haddana runtii waxaad moodaa mararka qaar inuu maaragtay difaacashada uu xoogga saaro. hadda kulankii lasoo dhaafo kale oo kooxda dhanka weerarka iyo maaragtay furfurnaanta iyo kubadelistiisa ay aad u liidato. marka Arsenal hadday Tottenham gurigeeda ku garaaci karto sanadkan fursad fiican ayay haysataa, laakiin marnaba ma noqon doonto kulan fudud. adigu saadaashaada maxay kula tahay in kulankan uu kusoo dhammaan doono? qaybta commentiga nagula wadaag saadaashaada, mar walba fikirkiina waa noo muhiim. falaqaynteedana intaas aan kusoo koobaya waa anigoo Cabdikaafi Cabdullaahi iyo idin leh, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.